السلام عليكم سودواada mar kale maanta waxaan is leegi doonaa odaygan oo in ka badan 15 sano ku nool meel cidla oo kaliya degan yahay raggan ayaa hadaba waxay sheegayaan in 4 bilood ugu dambeysay ay raadinayeen inay soo tabiyaan qisooyinka dadka kaligood nool ee go'aansaday inay meesha cidlada ku noolaadaan iyagoon raba inay weydiiyaan sababta ay sidan u go'aansadeen ama ku kaliftay inay keligood noolaadaan dhammaanba dadkan keligood noolna wax xidhiidh oo ay la leeyihiin caalamka ka baxsan meeshii ku nool yihiin ma jiro oo gebi ahaanba waxay ka goosteen dadka kale haddaba raggani markay marar badan isku dayeen inay la xidhiidhaan dadkaas dhammaantoodu way wada diideen laakiin ugu dambeyn 4 bilood kadib waxay soo heleen 3 qof oo ogolaaday inay xog ka gudbiyaan amaba ay duubaan oo ay caalamka u tabiyaan qisooyinkooda ugu horreyn gabadh ku takhasustay cilmiga psychology-ga ay weydiinayaan waxaan u sheegaysaa in kelinimada ama qofku inuu cid la noolaado ay soo badanayso baryahan side effect fara badan ay qofka ku leedahay oo ay maskaxaan iyo jir ahaanba qofka wax yeelayso haddaba intaa kadib raggan waxay safar u galayaan 3 waddan oo kala duwan ugu horreyn dalka Talyaaniga ay tagayaan halkaasoo ku nool yahay odayga aynu ku soo qaadanay bilowga muuqaalka kaasoo waqti aad u dheer cid la noolaa sidoo kalena waxay u safrayaan dalka Sweden halkaasoo iyadana ay kula kulmayaan nin dhalinyaro oo 3 sano ugu dambeeyay ku noolaa meel cidla iyo weliba gabadh kale oo ku nool jasiirada Greega taasoo xataa ay awoodi waayeen inay si toos ah ula xiriiraan ragganna bilowga waxay ku sheegayaan sababta ay u sameynayaan ama dadkan ay ula kulmayaan inay tahay inay barso ogaadaan waxa ku qasbay iyo waxa ay ka faa'iideyaan inay keligood noolaadaan haddaba halka ay dadkani u adkaysteen intaas sanadood inay keligood noolaadaan dad fara badan oo magaalooyinka ku nool ayaa imika waxay aad uga caawinayaan inay kelinimo dareemayaan iyagoo waxaa soo magaalooyin iyo dad dhex jooga haddaba marka ugu horeysa waxay imanayaan waqooyiga dalka Talyaaniga si ay ula kulmaan odaygii kaymaha keligii ku noolaa gaadhayna soo raacayaan markay gaadhiga xoogay ku soo socdaan gaadhiga way ka degayaan maadaama odaygu meel kayma oo dhir ku dhex nool yahay gaadhiguna aanu marin in lugeeyaan ayaa qasab ku noqonaysa iyagoo dariiqiisa ka socda odayga ku sii socda sida gurigiisa ugu tagana waxay halka ka arkayaanba odayga oo sii diyaar garooba geed dabadiisa ku qarinaya wayna wada qosilayaan marka dambana way salaamayaan odaygana bilowgaba waxay ka helayaan qaabka noloshiisu tahay inuu yahay qof aad u firfircoon isagoo da'da jira kadibna way soo raacayaan gurigiisa ayuu keenayaa markaabana odayga waxa uu siinayaa dhirtuu sidii dhowr laxood oo meesha ku dhaqday haddaba odaygan ayaa in ka badan 15 sanadood waxa uu ku noolaa buurahan dushooda odaygan ayaa sida ay sheegayaan raggani wax xidhiidh oo caalamka kale ka baxsan uu la leeyahay aanay haba yaraatay jirin xataa tuulooyinka u dhow wax xidhiidh oo la leeyahay ma jiro marka laga reebo hal nin kaasoo isaga iyo tuulada u dhow isku xidha ninka laftarkiisuna odaygan waxa uu bartay waqti aan sida u sii fogeyn oo dhowr sano ayuu imka la xidhiidhaa tuulada ugu dhow odaygan 20 sano muu gelin balse ninkan ayaa waxyaabo uga baahan yahay uga soo qaada raggan laftarkoodana imka ninkan ayaa ku soo xidhay odaygan adduunka sidan isku bedelay ee imka aynu ku noolnahay 20 sano ka hor ayaa ugu dambeysay wax walba oo ku saabsan wuxuu ka og yahayna ma jirto ragganna kadib gurigiisa ayuu gelinayaa waxaan ku oranayaa soo fadhiista waxyaabii ay u sideen ayay siinayaan iyagoo odayga halka kula sheegsanaya waxna ku wada cunaya haddaba odaygan intayna gudaha u sii gelin muuqaalka qaybtiisa labaad waxaynu ku tusayaan safarkii kale ay u galeen dalka Sweden halkaas ay kula kulmayaan ninkii dhalinyarada ahaa ee 21 jirka ahaa ee 3 sano ugu dambeeyay keligii noolaa inta ay dhexda sii socdaana muuqaal ayuu soo diraya ugu sheegaya markay meesha soo gaadhaan inay qaabkan u eg tahay meeshu degan yahay saacada markay gaadhiga soo wataana meesha ay imanayaan kadib waxay u leexanayaan xaggii keenta iyagoo sii lugeynaya waqti markay xoogaa socdaana waxa ka hor imanayaba ninkii iyo aygiisii waanu kaxaynaya waxaanu geynayaa gurigiisii gurigana aad bay uga helayaan iyo meesha uu joogo ninkan dhalinyarada waxa lagu magacaabaa Erik Krankvis waana nin Sweden u dhashay 3 sano ugu dambeeyayna waxa isku dayay inuu dhisto gurigiisa oo isaga u gaarka ee uu kaymaha ka dhex dhistay isaguna waqtigaas isku dayay inuu barto sidoo noqon lahaa qof iskiis ugu filan oo wax qabsan kara ninkan YouTube ayuu leeyahay 10 milyan qof ayaana ka daawada YouTube-ka halkaas uu ku document gareeyo noloshiisa iyo sida uu nool yahay waxaana laga yaabaa in channel-kan ka soo baxay maroon laakiin maadaama ninkan dhalinyarada uu keligii nool yahay haddana sida wajigiisa ka muuqato waxaad ka arkaysaa inuu meeshan aad ugu faraxsan yahay haddaba raggan waxay sheegayaan maadaama muuqaaladiisa aanu badan hadal oo wax macluumaad aanu ku soo darin imka inay wareysan doonaan oo ay weydiin doonaan wax walba ay rabaan waxaanay ugu horreyn weydiinayaan mise jir bad ahayd markaad halkan timid waxaan sheegaya inuu ilaa 17 jir ahaa su'aasha labaad ee weydiinayana waxa weeye waxaan imika aad qabatay gurigan aad dhistay waxaas oo dhan wax macluumaad kama aqoon markaad timid miya waxaan ku oranayaa nothing waxba kama ogeyn sida kalluunka loo dabtay ma aqoon sida fiidiyoyada loo sameeyo ma aqoon buuri gurigan aan dhisay sida loo dhisay ma aqoon waxaas oo dhan halkan ayaan ku bartay gurigiisa ayna ku oranayaan ma geli karnaa waxaan oranayaa soo gala markuu soo galiyana wuxuu sidoo kale u sheegay waxyaabaha halkan ku dhisan oo dhan in isagu ama uu dib u isticmaalay ama uu isagu qoray qoryaha wax walba si daradeed qarash badan iga mugelin buu oranayaa wixii xariireegaya leeyun baan isticmaalay sidoo kale waxa
weydiinayaan adoo 18 jira oo waliba dhigta science ayaad waxaad go'aansatay inaad halkan kaliya timaado oo gurigan iyo waxaan dhistamiyaa waxaan qoranayaa haa warun jaamacad buu dhiganayay ninkan 18 jir buu ahaa haddana wuxuu go'aansaday inuu kaliya halkan imaado isagoo ninkan dhalinyarada sheegaya in marka hore dadka iyo familkiisa oo dhamay ay moodayeen in waxbarashada sii wadi doono laakiin wuu dhadham weyd buu oranayaa gaar ahaan waxaan dhiirigelinta ka helay markaan daawaday documentary lagaga sheekeynayay nin Mareykan kaasoo waqti hore isaguna dhistay nolol gooniya oo gobolka Alaska deganaa Mareykanka markaan muuqaalka daawadayna dhiirigelin ayaan ka helay halkan ayaan anaguna sidaa ku soo go'aansaday inaan soo degayuudi inta kadib markay 7 cish ka soo wareegto ragani waxay u socdaalayaan si ay ula kulmaan gabadhii saddexaad jasiirada Greek ku noolayd iyagoo sheegeen gabadhan saddexaad ay tahay qofka kaliya ee aan hubin in la kulmi doonaan iyo in kale maadaama si toos ah ula xiriirin ay kaliya iska soo dhaqaaqeen markay jasiirada sidaa u soo gaadhaan in iyaga kamid ah sheegaya inaanu ka filin jasiiradu sidan oo dhan weyn tahay gabadhan ay la kulmayaan Riini ayaa loo yaqaanaa laakiin ma hubaan inay meesha ku sugan tahay in kale iyagoona ka sheekeynaya meelihii faraha badnaa ay u soo mareen iyagoo kayma soo maray dooma soo qaatay meel dhan oo airport ka soo dhex baxay laakiin haddana aan hubin inay gabadhan la kulmi doonaan iyo in kale halkana gabadhan waxay ku noolayd 10 sano lamana garanayo sababta ay halkan ugu nooshahay ee jasiiradan kaligeed ugu nooshahay kadib gabadhan gurigeeda ayay u soo dhawaanayaan mid iyaga kamid ah markaa wana garanaya in gurigan guri islaameed uu yahay gabadhan ay u socdeen ay ahayd islaan meesha ku nool doontii yarada gurigeeda ku yimaadeen way ka soo degayaan gurigii bay soo galayaan gabadh iyaga la socotay baana toosinaysa islaantu way hurday dibna islaantu si fiican bay soo dhaweynaysaa kadib islaanta markay fadhiistaan way wareysanayaan waxaana u sheegaysaa in halkan aabaheed ku noolaan jiray kadib dhanka kale odaygii ay waxay weydiinayaan inta sano uu meesha ku noolaa waxaan u sheegayaan waqti gaadhaya 45 sano uu ku noolaa isagoo tusaytay sarayar oo sawirkiisu ku qoran yahay isagoo yar waxaan sheegayaa in laga joogo waqtigii gurigiisa caadiga ah magaalada uu ku lahaa laga soo saaray 23 sano magaalada intii aanu tagin ay gaadhay 27 sano kelinimo ma dareentay bay ku oranayaan waxaan qoranayaa marmar habeenkii on dareema laakiin badan kamay laakiin markaas subaxii soo tooso ee aan idahayga arko aad baan farxaabo oranayaa caadi baan noqdaa xan yaro idaabu halkan iskaga dhaqdaa odaygani buuqan iyo qallaasa adduunka ka jirana wax wara uu ka hayaa ma jirto jawiga degan buu iskaga jiraa isagoona nin weydiinaya sidoo kale ka waran marka dadka ku dhex jirta ayaaba kelinimo la dareemaaye adigoo halkan sidaad ku dareentaa waxaan odhanayaa dadka qaar baa sida ayagoo kale kula dhaqmaya waana sababta uu doortay noloshan oo odaygan waa lasoo xumeeyey waqti hore gurigiisa ayaana laga soo saaray sidoo kale odaygu waxa uu sheegayaa waqtiyada uu firaaqada hayo inuu buugaagta akhristo mawduucyada dadka waaweyn ayaanu akhriyaa sida makaaniga fisiiska waxaasoo dhan waqti xaadirkana wuxuu raacinayaa inuu luqada Chinese-ka baranayo isagoo da'dan jira raggii Mareykanka ahna way yaabayaan boo indhahay taagayaan waxaanu dhanka kale u sheegayaa in waxyaabo badan isagu sameeyo gacantiisa ku sameeyo qalab uu sameeyay ayaanu tusayaa isagoo ka oranaya iskuul iyo waxa isku gelina idinka wax isbari kara isbaro gacantiina isku bara waxaan ka oranayaa iskuulkaagan soo gelinaya iyagoo la kaftamaya qalabka uu sameeyay waa qalabka barafka lagu ciyaaro kaasoo uu bariig uu sameeyay ama qaab loo istaajin karo ragana way la yaabayaan qolkiisa yar ayaanu gelinaya uu seexanayay caarayro xagga sare uu ku daayay ay soranayaan ka tuura raggan inta ka baqlaan wuxuu oranayaa ii daaya kaneecadayga cuntahay dhanka kale ninkii Sweden ku noolaa isagana waxay ka wareysanayaan waxyaabo fara badan waxay ka oranayaan wax TV ama wax internet ma gashid Soomaha waxaan u sheegayaa wax electricity inaanu isticmaalin oo aan mobilkan waxbaan ku duubaa buuri waxaanu sidoo kale sheegayaa markii halkan yimid dadka ay saaxiibada ahaayeen ee la yaabeen ku dhaadeen waad waalantay waqtiga qadiimiga ah ku noolaanaysaa bay ku dhaadeen waxay kayn baan ku noolaanayaa laakiin dhanka kale sidaas ay tahay dad fara badan way taageereen sida familkayga oo kale ay yiri laakiin dabcan ma rabin in cidna ku tirsanaado sida darteed ayaan waxaan u sameeyay oranayaa qalabkan aan wax ku jarjara markaas isticmaalaysan waxaad baanta gacmahaaga inaad isticmaasho iyo energy-gaaga oranayaa oo adigu isku tirsanaato laakiin waxay ka oranayaa balka warniimka social media caan bad ka tahay marka hore maan haysan oranayaa ama maan aqoon Instagram iyo waxaas ma lahayn markii dambe aan samaystay kadibna markaasaan arkay faa'iidadeeda oo markii hore waan ka soo horjeeday inaan samaysto oranayaa sababta ugu weyn aan u samaysteen waa inaan dhiirigeliyo dadka kale ee rabay inay sidoo kale u noolaadaan waxayna ku oranayaa waxaad noo sheegtay in aanad cidna ku tirsanayn oo kaliya tahay laakiin miyaanad meeshan kelinimo ku dareemin oranayaa kelinimo badan kama dareemo laakiin imika saaxiibad baan samaystayba inaad kaliya tahay iyo inaad kelinimo dareemaysan way kala duwan tahay oranayaa adigoo kaliya ah ayaanad kelinimo dareemin laakiin dad fara badan oo magaalooyinka ku nool iyagoo dad fara badan ku dhex jira haddana kelinimo dareemaan ragna way ku raacayaan wax ka oranaya waruntaada kadibna su'aal kale oo faniyo weydiinaya waxay ka oranayaan dugaadhe halkan agtaada naga xumaadon kusoo martino meelaan seexanam ka helina ama qolkaaga yar mana deeqayaa waxaanu ka oranayaa may laakiin waxay oranayaan baadadna diido guri baan kaaga dhisanaa meeshana waanu kula deginaa raggana aad bay ugu helayaan qaabkan uu ninkan u nool yahay iyo sida uu doortay iyo hawada freshka iyo nature-ka uu ku dhex jiro meelaha dabiiciga ah waxayna oranayaan nimka waqti yar baan joognaa bal haddaan waqti dheer joog lahayn ka waran haddana wuxuu tusayaa khudraddu beertay sida baradho kaaro waxaasoo dhan uu meesha ka beeray ayuu tusayaa wayna soo guranayaan qaar ka mid ah xataa wuxuu tusayaa marka dambe qaabka wax loo kariyo iyo qaabka dabka loo shito haddaana dab haysan raggana wuxuu u dirayaa inay xaabada jarjaraan way la shaqaysanayaan si ay cuntadooda u karsadaan iyaguna dhanka kale aynu kusoo noqonay islaantii waxay weydiinayaan waxyaabo fara badan si aynu soo sheegnay waxayna u sheegaysaa in ninkeedu meesha kula noolaan jiray oo dhintay sidoo kalena wiilkeeda oo la joogi jirayna uu iskaga tegey kadib markuu la joogay waqti kooban islaantana kadib waxay weydiinayaan waxyaaba ay sida maalinlaha u qabato iyadoo sheegaysa in salaada hore ay toosto digaageeda oo ay dhaqatana ay wax siiso
markan gurigii kala yara nadiifiyana waan iska seexdaa bay tiri maalin oo dhan waan hurdaa haddaba gabagabada raggan waxay sheegayaan marba marka ka dambaysa markay la sii fadhiyaan dadkan oo ay wareystaan inay arkayaan inay yihiin dad aad u faraxsan iyagoo weliba qaab cidlaa u nool qof walba oo saddexdoodan ka midana shaqadiisa maalinla ay tahay inuu xoolaha u dhaqanayo wax siiyo sidoo kalena howlaha maalinle ee u yaalla ay qabtaan buuqa adduunyadana ay ka raysteen saddexdan qofna waxa ugu cajibsan odaygan markay dibadda ugu soo baxaan waxay arkayaan inuu xataa isagu khudaar uu leeyahay beertay sidoo kale farta Chinese-kana uu baranayo wuxuu tusayaa gidaarka uu wax ku qorqoro ee uu farta ku barto iyo qalab kala duwan oo isagu gacantiisa ku sameeyay odaygan raggan aad bay uga yaabayaan maadaama waxyaabo fara badan oo ka yaabiyay uu tusayo wuxuu tusayaa qalab fara badan iyo waxyaabo isagu uu soo saaray oo nolol maalmeedkiisa ugu talagalay xataa mar wuxuu tusayaa qaabka looga akhriyo time-ku xilligu yahay cadceed adigoo eegaya sidoo kale wuxuu tusayaa qalabka lagu soo faystay midida waxaasoo dhan isaga ayaa isticmaala maadaama uu marnaba aanu tegin tuuladana waxaasoo dhan wuxuu ku qasbayay inuu isagu samaysto si uu noloshiisa ugu filnaado ugu dambayntana ninkii deganaa kaymaa cidlada ee Sweden waxa uu karinaya raggan cunto sidoo kale islaanta laftirkeeduna kalluun bay u soo dabaysaa oo karinaysaa iyaguna marka ugu dambeeya saddexdoodaba soo macasalaameynaya odayga islaanta iyo ninkii Sweden joogaba haddaba saaxiib haddii aad muuqaalkan muxuu ka faa'iiday fadlan nagu soo biiro subscribe-ta noo saar muuqaalkana like saar aad baad mahadsantiin